وبرنامجكني معده بوكا ما أنت حق سوق هذا دونا بوكا اللي هذا why A students work for C student and B students work for government معنيه سنقولنا يا محي ardayda u keenta grade-ka A ay ugu shaqeeyaan ardayda keenta grade C ardayda grade B keentana ay ugu shaqeeyaan dawladda waxa qoray Robert Kiyosaki oo ah qoraaga buugii caanka ahaa ee Rich Dad Poor Dad buugani waxa uu gudbinayaa saddex aragtiyood aragtida koowaad waxay tahay wuxuu sheegayaa qaybaha shaqada waxay u qaybsantaa afar qaybood mid waxa la dhahdaa waa employee waa qofka shaqaalaha oo wax weeyaan waa qof cid kale u shaqeynaya dadana ku xisaabtamaya shaqada uu qabtay lacagteedii bishii markay dhamaato qofna waxa la dhahdaa waa self employed waa qof isagu si iskiya u madax bannaan u shaqeysta oo mashaariic qaata qofka saddexaad waxa uu noqonayaa waa qof business owner oo isagu intuu waxa weeyaan ganacsi sameeyay system sameeyay dadana isaga lagu shaqeynayo shaqaalahana maamulaya qofka afraad waa qofka la dhahaa investorka oo qofka maal gashada waxa weeyaan ganacsiyada aba yaani fikradaha waxa weeyaan maal gashada qofkani waxa yiraahdaan mostly waa qofka ugu wanaagsan sababtoo waxay tahay dadna ma maamulayo waxa weeyaan mana shaqeynayo wixiisa korkaas ma kala soconayo lacag sameynaya marka afarta qaybood ee shaqadu waa afartaas waxa kale inoo sheegaya muhiimadda ama kala duwanaanshiyaha liability iyo assetka liability-gu waa shay kasta oo ka dhigaya yaani qof lacag ku bixiyo tusaale kale haddaad gaari iibsato waxaad bixinaysaa gaarigaas oo soo amaahato deyntiisa baad bixinaysaa waxaad bixinaysaa dhammaan wixii ka xumaaday oo dhan laakiin haddii aad guri dhisato aad guriga kirayso waxa weeyaan waa lacag baad ka samaynaysaa xataa adigoo jiifa marka waa liability waa shay kasta oo adiga aad lacag kaaga baxdo assetkuna waa shay kasta oo adiga lacag ku sameeya waxa kale inoo sheegayaa sababta ugu weyn ee ardayda sida keentaa ay inta badan u noqdaan dad waxa weeyaan ganacsataa sababtaasina waxa weeyaan maadaama uu ku hooseeyo ardaygii nidaamkii education systemkii la dhigay waxa isku dayay inuu xirfado kala duwan barto oo aad u badan taasoo u sahlaysa in hadhow tole uu fursado u heli karayo oo isagu ganacsi ku abuuro yaani isagu ma aaminayo dibciisa ma aaminayo suu shaqaale noqdo laakiin si kale u survive karo ugu raadinaya halka kan kale eeda keenaa oo isagu siduu eeday u eriyanayo markasta ugu dadaalayo inuu keeno markastana uu qiimihiisa kor ugu qaadayo xagga waxa imtixaanaadka si uu ugu shaqeeyo company-ga ugu wanaagsan hadhowna qofkaas wuxuu ku dambeeyaa isagu eeda Kenya inuu shaqeeyo qofkii sida keenay macnaheedu tahay qofkii masli waxba aan baran aan dhibciisa hooseeyay Elon Musk baa laga hayay anigu ma tagin iskuulka la yiraahdo Harvard yaani ma tagin jaamacadda Harvard laakiin waxa ay shaqeeya dadka ka soo baxay jaamacadda Harvard yaani marka wuxuu difference inoo sheegaya ama kala duwanaanshiyaha inoo sheegaya labadan qof midna eeda Kenya midna sida Kenya kan eeda keenay isagu wuxuu raacayaa education systemkii buu raacaya taasina waxa uu diyaarinaysaa inuu shaqaale wanaagsan noqdo halka kan sida keenay markuu waxbarashadii ku wanaagsanaa waayo isku dayay qaabab kale oo xirfado kale u heli karayo oo ku shaqeysan karayo isaguna wadada maamuli karayo qolada bida iyadoo labadan wax weyn qolay u dhaxaysaa marka iyadoo inta badan dawladda ay u shaqeysaa sababta ay u shaqeynaysaa waxa weeyaan yaani waxna uu ku wanaagsan yahay aqoon yar dheeraadana oo haysta laakiin ma gaaray ka kala sida keenay yaani haysta aqoonta kala duwan marka mucda buugu macnihiisa guud oo xambaarsan yahay waxa weeyaan in qofku uu isku dayo inaanu hal shay yaani ku dadaalin ku wanaagsanaado laakiin isagoo wax baranaya hadana waxay la kala duwan ku wanaagsanaado si xataa haday noqoto inuu shaqaale noqdo oo fursadaha shaqada u heli karayo way qofka xirfadaha badan leh waxa uu heli karayaa fursado shaqo kala duwan halka xirfad kaliya leh haddii xirfadiisaas wax ku yeeyo aanay jirinin doq kale uu isagu leeyahay intaasanu buugu nagu dhiirigelinaya harajeen inaad fahanteen asxaabtiina la wadaaga si ay noola faa'iideystaan toddobaad kastana waxaad la socotaa toddoba buug macnaheedu tahay in maalin kasta hal buug soo gelin doono. Assalaamu calaykum warahmatullaahi ta'aala wabarakaatuh.